dagaalamayaasha al-shabaab ayaa soo saaray amar ay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir uga mamnuuceen ciyaarista kubadda cagta milkiilayaasha garoomada iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ee xaafadaha waqooyi ee gobolka Banaadir amarkana la wadaagay dadka iska leh garoomada sallaxa ee lagu ciyaaro kubadda cagta kuwaas oo dhaqan geliyay amarkii al-shabaab ee soo baxay maalmo ka hor dadka aan la hadalnay oo ka gaabsaday inaan adeegsano magacyadooda iyo codkooda in degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Heliwaa ee gobolka Banaadir laga mamnuucay ciyaarista kubadda cagta waxaana fariintan la wadaagay oo kaliya milkiilayaasha garoomada sallaxa ee degmooyinka aan soo sheegnay faahfaahinta la helayo ayaa sheegaysa in garoomada ciyaaraha laga joojiyay ay ku yaalaan wixii ka dambeeya wadada Sodonka ee magaalada Muqdisho waxaana milkiilayaasha qaar looga yeeray gobolka Shabeellaha Hoose xarun ay al-shabaab ku leeyihiin al-shabaab ayaa dadka iska leh garoomada kubadda laga joojiyay oo ay qaarkood la kulmeen ku qanciyay in aysan ka hor imaanin go'aanka ka soo baxay al-shabaab balse ay raadsadaan beddelka oo ganacsi ay abuuraan waxaana ay go'aankooda u xogsadeen inuusan sharci ahayn isla markaana laga soo minguuriyay dhaqamo shisheeye kulanka al-shabaab iyo qaar ka mid ah ganacsatada garoomada ayaa ka dhacay deegaanka Toorotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose sida ay sheegayaan ilo lagu kalsoon yahay amarka al-shabaab ayaa saameeyay wax ka badan ilaa 20 garoon oo futsal ah kuwaas oo ku yaala Yaaqshiid, Kaaraan iyo degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir sidoo kale amarka al-shabaab ayaa saameeyay boqolaal ka mid ah dhalinyarada kubadda cagta ee ku nool xaafadaha garoomada laga mamnuucay waxaana sidoo kale dhalinyarada soo wajahay cabsi dhinaca amniga ah ila waraadyo lagu kalsoon yahay in garoomada la xiray mid ka mid ah uu leeyahay mas'uuliyiinta degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir gaar ahaan xubnaha dhinaca sportiska ee degmadaasi saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo nabad sugidda Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan amarka al-shabaab ee la dul dhigay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho dhinaca kale xaafado ka mid ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa laga mamnuucay leerarka ama nalalka lagu dhajiyo banaanka guryaha iyo wadooyinka mara xaafado ka mid ah degmadaasi goobjoogayaal ayaa sheegaya in dhalinyaro la tuhunsan yahay inay al-shabaab ka tirsan yihiin ay jabiyeen leerar badan oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir milkiilayaasha iyo dadka kireysta qaar ka mid ah guryaha degmada Dayniile ayaa sheegay in lagu amray inay jabiyaan ama ay furaan leerarka banaanka ee degmadaasi magaalada Muqdisho waxaa si buuxda gacanta ugu haayo dawladda Soomaaliya balse dad badan ayaa aaminsan in al-shabaab ay ku xoogan yihiin xaafadaha waqooyi ee gobolka Banaadir dawladda Soomaaliya ayaa xil weyn iska saarin ammaanka guud ahaan magaalada Muqdisho dawladda ayaa la sheegay inay kaliya xooga saarto ammaanka xaafado gaar ah oo ay degan yihiin mas'uuliyiinta dawladda iyo goobaha ay ka ag dhow yihiin xarumaha hay'adaha dawladda iyo sidoo kale saldhigyada ciidamada Soomaaliya kuwaas oo ku yaala degmooyin kooban